waxaan rabaa afsiin oo lagu soo kala kacay golihii shacabka fadhiistay mudane madaxweyne oo iyagu qirtay haddii maamul goboleedyadii iyo dawladdii dhexe laantii fulinta doorashada isku fahmi waayeen in iyagu xaq ay u leeyihiin doorashada dalka inay jeeyaan sharciga soo saareen oo la yiraahdo jeeynta doorashada dalka oo 2 sano ah mudane madaxweyne waa saxiixday waliba si degdeg ah u saxiixday maxaa kugu dadajiyay inaad saxiixday sharcigaas haddii ujeedkaygu u ahaa muddo kororsi taas xaqiiqo ma aha xaqiiqda dhabta ah waxa weeye dhaqaaqi waaye labadaas dowlad goboleed eedaynta waxay imaanaysaa marka madaxweynaha wuxuu rabaa muddo kororsi 2 sano ah marka horeba saasuu ku fikirayay mar hore wayna u meel martay taa ma jirta mudane madaxweyne waa nasiib darro madaxweyne maxamed xantaada ma moogid 1 sano mucaaradka dalka waxay kugu tilmaamayaan inaad tahay madaxweyne dictator ah jecel xukunka aan rabin in kursiga uu ka dago fasalka ka xun marka magac kale waa inay ii raadiyaan aan ka sahay labadaas sano marka mudane madaxweyne ma isleedahay doorashada aad rabtaan dawladdaada mudane madaxweyne rabta dalka doorasho qof iyo cod inay ka dhacdo oo nidaamka xisbiyada badan ah qabiilkan laga gudbo dastuurka sida ku qoran sharciga la aado ma isleedahay waa lagu qaban karaa oo lagu gaari karaa iyadoo aan kugu daree weli awoodda doorashada ay leeyihiin awoodda dalka siyaasadda ay wax ku leeyihiin maamul goboleedyadii aad ku tilmaamteen dawladda dhexe ay ku tilmaamtay inay ka socon waayeen ama ay ka socon weysay heshiiskii 17 September waxaa jirta hadal ahayn ah madaxweyne farmaajo dawladaha dariska uu soo kala dhaweystay Itoobiya oo ahayd Soomaalida ay u arkayeen cadawga koowaad ee Soomaaliya ay leedahay madaxweyne farmaajo xiriir dhow ayuu la yeeshay Kenya wuu fogeeyay Itoobiya iyo Eritrea xulufo ka dhigtay arrintaas maxaa kaga jawaabaysaa mudane ma jiraa nin siyaasi ah oo dawladdan u xiran ma jiraa nin media ah oo dawladdan u xiran ma jiraa arrintaasi runtii waa arrin dhab ah waa dhab weeye maxaa yeelay Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier